Foolkaanada Lutulo ee Indonesia waxay gashay marxaladan hore loo arkin durbadiiba waxaa cirka isku shareeray daruuro qiiqiya dambasa oo ka soo baxay gudaha buurta taasoo keentay in lagu dhawaaqo digniin hawada iyo xiritaanka garoomada diyaaradaha ee deegaanka. Mas'uuliyiinta Indonesia waxay ku dhawaaqeen xaalad feejignaan ah oo heerka labaad ah iyagoo ka digay suurtagalnimada inay mar kale dhacdo ayagoo dadweynaha ka mamnuucay agagaarka foolkaanada masaafo dhan 4 kiiloomitir halka diyaaradaha la faray shaqo joojin ku meel gaar ah sababo la xiriira dambaska foolkaanada ee ku soo dhacay garoonka diyaaradaha ee deegaanka oo si ku meel gaar ah u xirnaa. Indonesia waxay hoy u tahay 130 foolkaano sababtoo ah waxay ku taalaa mid ka mid ah saddexda aag ee ugu muhiimsan dhulgariirka meeraha. Sanadkii 2018 foolkaano ka dhacday meel u dhaxaysa jasiiradda Java iyo Sumatra ayaa sababtay isbuurasho ka dhacday badda gunteeda waxayna keentay mowjad kacsan oo dishay in ka badan 400 oo qof.